afaafka hore garoonka kubadda cagta Engineer Yarisow Ex Stadium Kunis oo ku yaala degmada Cabdulcasiis ee gobolka Banaadir waxaa ka dhacay dibadbax ay ka qaybgalayeen boqolaal ka mid ah dariiqada culimada suufiyada iyadoo ay ku sheegeen dibadbaxani in ay kaga soo horjeedaan muxaadaro uu gudaha garoonka uu ku qaban lahaa Sheekh Maxamed Cabdi Umal muxaadaradaasi oo maanta qorshaha uu ahayd in sheekha uu ka jeediyo gudaha garoonka ayaa baaqatay waxaana loo bedelay in la qaban doono maalinta Axadda toddobaadka dambe xubnaha dariiqada suufiyada ee ka qaybgalaya dibadbaxan ay ku qabteen afaafka hore ee garoonka Engineer Yarisow waxa ay sheegeen in ay ka soo horjeedaan qabashada muxaadarada loo balansan yahay in maalinta Axadda ay ka dhacdo gudaha garoonka Engineer Yarisow waxa ay fariin u direen dawladda federaalka ah ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa ay sheegeen cawaaqib xumada ka dhalan karta sida ay hadalka u dhigeen qabashada muxaadaradaasi in ay qaadi doonto mas'uuliyadda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waa kuwan xubnaha dariiqada culimada suufiyada ee ka qaybgalaya dibadbaxan maanta oo sidan warbaahinta u sheegay umul doonmayno nabiga caayad doonmayno mushaarqaata doonmayno diinta iibsada doonmayno yaana dagaal diimeed dib noogula soo celin anaga doonmayno nabi caayad doonmayno nabi caayad doonmayno dawladda waxaan u sheegaynaa nabi caayad doonmayno axadda muxaadarada la qabanayo ee dawladda ay calaamiso waa ka soo horjeednaa maanta ummaddan Soomaaliyeed oo meesha isugu timid oo hogaaminaysa culimada ahlus sunna wal jamaa waxa meesha isugu keenay waxa weeye muxaadaradii la iclaamiyay oo la yiri waxa qabanahaya Sheekh Umal sida loo sheegay marka midda ayada ah ayaa la diidan yahay sababka loo diidayo waxa weeye ninka la yiraahdo Umal waa ninkii ummaddan Soomaaliyeed dhibaatada maanta haysata raggii oo gaalaysiinta iyo laynta ah aabbayaalkii aas-aasay nimanka takfiiriyiinta ayuu ka mid yahay wuxuu ka mid yahay ragga u iftoon jiray una iftooday dadka in la laayo muslimiinta ah ee Soomaaliyeed diigooduna uu bannaan yahay ayuu ka mid yahay wallaahi oo billaahi oo tallaahi haddii Axadda ay qabtaan muxaadaradaas ay dawladdu qabato wallaahi waxaan joogsanaynin mudaharaad ilaa dawladda ay ka dhacdo dhacaya ayaa dhici doona dawladda ha ogaato maalin walba ay isku dayaan inay muxaadaro qabtaan maalin walba ay isku dayaan inay muxaadaradaas hirgeliyaan waxay ogaan doonaan waxa saxda ah ay yihiin waxa saxda ah ay yihiin ummadana maanta intaan wayba yar yihiin maalin kasta isku dayda ama xad ka dhigta ama isniin ka dhigta waxaan ballan qaadaynaa inaad ogaataan damiirkeena wuxuu yahay waxa ogaanaysaan dadkan Muqdisho ku dhaqan iyo Soomaaliyaba ku dhaqan inay dareenkooda muujin karaan waana muujinaynaa maantana waa muujinay dawladda waxaan ka codsanaynaa maanta inaan sida culimadii iga horeysay ay ku baaqeen inaan dagaal diimeed ummadda dib loogu celinin waan ka soo kabannay kuwii dadka qarxin jiray oo argagixisada ahaa oo dhibka abuuri jiray oo fikirka argagixisada aaminsanaa maanta waan ka soo baxnay 2009 waxaan ku jirnay maanta alxamdulillah waan ka bogsannay inayna dawladda Soomaaliya nagu soo noolaynin rasuulkeena qiiradiisa ayaana keentay maxabadiisa ayaana keentay waxaana keenay qiiro raxmaani rasuulullaahi raxmaani qiiradiisa ayaa inta xaafadeen u soo lugaynay ilaaha baa wax dilo ilaaha baa wax nooleeyo ilaaha baa shaqadka qura bilaadan wax ma dilo bilaadan wax ma cuno bilaadan wax ma taro annaka ilaaha baa caabudsanay ilaaha ka soo rasuulkeena baa caabudsanay nabiga محمد بعبسنا أبايدا بعبسنا أنت رعد الرميت أولياء عبسنا نكا الرعسنين ما تونين عنك إن ولا ليال وحما أنت قرح هذا نكاني قريهني قريها نجي نجسوا بحيي وأنا بجينا عليه الصلاة والسلام قيرة أنو قيرة سنة هاي جعل كأن جعلنا هاي قريها نجسوا بحيي معايا لي نكي نبي محمد عليه الصلاة والسلام عايي oo sharafkii nabi maxamed oo ilaahay weyneeyay oo ilaahay wakaana fadlullaahi calayka cadiima u yiri ninkii ku sheegay hoos u dhigay ee injir ku sheegay wuxuu asagu isu quurin qayru qalqilaah ninkii u quuray ayaan ka qiiraysanahay oo aan diidanahay oo banaag u taaganahay waxaana leenahay ilaa oo wadankeena ka baxo waan u taagnaanayna waan ka soo horjeednaa mana ogolin Umar Maxamed Soomane Universal TV Muqdisho